qaar waxay way curyaamiyeenoo qacmaha laga jaraa ama lugaha laga jaraya baansiin baa lagu shubayaa labada lugood baa laga soo gubaya dad badan waxay arkaysaa naafaa hadduu qofku xanuunsado irbad cudur ah ayaa lagu mudayaa oo hore u dhimanayo qofku magaalada Hargeysa waxaa lagu soo dhaweeyay 49 dhalinyaro kuwaasoo laga soo celiyay dalka Liibiya oo muddooyin kala duwan ay ku xidhnaayeen jeelasha dalkaasi gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga qaranka wasiir ka tirsan xukuumadda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID saraakiil ka tirsan hay'adaha IOM iyo UNHCR iyo kuwa kale ayaa dhalinyaradaasi ku soo dhaweeyay madaarka magaalada Hargeysa dhalinyarada ayaa markii ay madaarka ka soo degeen waxa laga dheehanayay saameynta boholiyooga iyo daltabyada ay u soo qaadeen dalkooda hooyo mid ka mid ah dhalinyarada oo Sab TV la hadlay waxa uu ka waayo waramay wixii uu la soo kulmay intii uu ku jiray safarka tahriibta wadanka waxaan ka baxay 2017 bishii shanaad Boosaaso Yemen ilaa iyo Suudaan ilaa iyo Liibiya runtii wixii ugu la yaabka badnaa ee arko wuxuu ahaa qof nool oo dirxi galay ayaa ugu la yaabna badnaa oo arkaan noloshayda runtii qofkaygan caafimaadka qabeed arkayso markan halka ku sugnaa jirkaygu waa googo'ay maanta waan caafimaad qabaa wana ilaahay baan ugu mahad celinayaa maadaama wadankayga nabad ku soo noqday ilaahay ayaa mahadaale waxaanu galnay saxaaraha waxa ka ugaadhsada dad tuugadaasi nimanka tuugada ah waxay arkayaan dad tahriibayaal runtii markay tahriibayaasha arkaan rasaas baa lagu furayaa wixii dhimanaya way dhimanayaan wixii baaqiga ay helaan way kaxaysanayaan dib bay u iibinayaan calaa $2,000 buu qofkii ku iibinaya runtii $2,000 markuu kugu iibiyo ninku kaa iibinaya hadhow talo wuxuu kaa qaadaya $12,000 iyo wax ka badan naadirka markuu la hadlo wuxuu taagan yahay $12,000 baan ka soo qaatay adigu halkaa u istaag intaa in ka badan ka qaado nin walba xirfad gaara buu leeyahay oo dadka lacagta kaga qaado qaar dadka way deldelaan qaar korontay ku qabtaan qaar waxay way curyaamiyeenoo qacmaha laga jaraa ama lugaha laga jaraya baansiin baa lagu shubayaa labada lugood baa laga soo gubaya dad badan waxay arkaysaa naafaa hadduu qofku xanuunsado irbad cudur ah ayaa lagu mudayaa oo hore u dhimanayo qofku 24 saac ee tibroodiya aad ku galaysaa wadbiyo ku dhooqaysaa runtii waa nolol aan iminka ka sheekeyn karin gudoomiyaha Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif waxa uu sheegay in dhalinyarada dalka ay ku soo dhaweynayaan isagoo intaas raaciyay in xukuumadda iyo hay'aduhuba xil iska saarayaan maareynta nolosha iyo mustaqbalka dhalinyarada ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa maanta haddii ay yimaadeen arrigoodii iyo arligoodii iyo dadkoodii iyo dhulkoodii hadday nabadqab ku yimaadeen idinkuna ilaahay ugu mahadnaqa waa aragnimo qofka bani aadamka u baahan yahay noloshay ka mid tahay hawshan muddo soo socotay gacan weyn ka geystay hay'adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan shaqooyinka noocan ah mar hadda Soomaaliland timaadeen suuqa kala gal laydin odhan maayo nolosha gacan baa laydinka siin doonaa waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka dastuurka iyo golayaasha isagoo sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xil weyn iska saaray sidii ay dhalinyaradu wadanka si nabadgelyo ah ugu soo gaari lahaayeen الله الرحمن كاه إنه سور تجليه إن أبد كيجي يبار كيجي يبقى يجي ما أنت يجو بد قبائل دلكودي هو يكسر لافتا يدا بدأ إذن كم دي سباي لها بعد كي يبقى عدده يبقى حد صورها وقت ماده وحن هو عمر خاتكا هاي حلا الصقدي دحنا مدحونات مرد السومالي الآن Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiinta kale ee wasiirada inay ku hawlanaayeen imaanshiin caruurtan maanta halkan u taaganahay waa hormadii koobaad si nidaamsan ugu soo noqota dalka in badan ayaa lafahooda ku tageen safarkii ay galeen in badanna wali way ku maqan tahay intiinan baa laga bogan karaa maanta waalidkoodu niyadoodu ku day kartaa kumayaal waalid ah ayaa beerkoodu haldanaya waxa leen niwaakii ku haddana kacay inaad waay arag ku soo noqoteen socodka ayaan rajaynaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Engineer Faysal Cali Waraabe waxa uu halkaas ka tilmaamay laba qodob oo xudun u ah in dhalinyaradu wadanka ka tahriibaan dhibaatadii waa laba meelood oo labada meel la xaliyaa weeye mid waxa weeye waa amal la'aan waxa laga yaabaa inuu ku yiri ka waaweynaa oo jaamaca ka soo baxay aanay shaqo haynin magaca dugsiga ismiidaamaya tagala waxa weeye waxay naga burburay qoyskii waxa ka baxay meesha xilkii aabanimo ka baxay aabiba qayliya hooyadiiba ku soo murxisatay wana ogeyn intiina badan hooyada lacag ka bixisay aabameedimo ogeyn qaylihi waxaana weeyna qoyska dib u dhisnaa bulshada qoyska ka dhisantaa dawladda waxa weeye in ummadda shaqo u samaysaa waa in waxay haysan cadaalad ku bixisay project fiican ee dawladdu sheegtaan way fiicantay yaa MTEU-dana waxa integration bay siinaysaa Maxamed Xasan Daacad Sab TV Hargeysa